aniga waxa igu dhaliyay in aan isu soo sharxo jagada madaxweynaha runtii arrimo aad u fara badan oo ay ugu horeyso in maxaa la yiraahdaa boqolkiiba 85 ama 75 la yiraahdo dalka Soomaaliya waa dhalinyaro la yiraahdo dal boqolkiiba 85 dalka Soomaaliya maxaa la yiraahdaa xuduudiisu waa dhalinyaro mustaqbalkiisa iyo maskaxdiisa iyo aqoontiisu waa dhalinyaro la yiraahdo runtii haddana markasta dhalinyaradii aan door la siin dhalinyaradii oo ah dhalinyaro aqoon-yahana oo wax barata aniga waxaan metelaa dhalinyarada Soomaaliyeed runtii dhalinyarada dalka wax ku barata ayaan ka mid ahay waxaana metelaa dhalinyarada Soomaaliyeedan metelaa maadaama mar walba afka loo mariyo dhalinyarada waxa tihiin mustaqbalkii dalka haddana markasta ay leesku soo dul sharxo 40 jir aad aragtaa is sharxa 50 jir 60 jir 70 jir ilaa 80 jir intaas wiil Soomaaliyeed ma aragtay oo door siyaasadeed wax laga siinayo oo dhalin yar oo shaqooyinka ugu fiican dhalinyarada marnaba waxba lama siiyo muhiimadda intaasoo kun sanadkiiba soo qalin jabisa dugsigeeda sare iyo jaamacadaha ka soo qalin jabisa wax mudnaana iyo wax doorana lama siiyo intaasoo sano ayuu joogay oo khibrad siyaasadeed khibrad aqoon dhinac walba leh ayay joogan haddana cidna muhiimad ma siiso doorna ma siiso dhalinyarada mar walbana waxa afka loo mariyaa waxa tiin mustaqbalkii dalka waxa tiin maskaxdii dalka waxa tiin